sida aan ku soo xusnay qaybtii koowaad 2009 ayaa qof ama koox isqarinaysa oo wata magaca Satoshi Nakamoto waxa uu sameeyay boqorka cryptocurrencies-ka Bitcoin. Fikraddu waxa ay ka timid hab ay dhaqaale isku weydaarsan karaan malaayiin qof oo dunida daafaheeda ku nool ayada oo aysan soo dhaxgelin bangiyada ama dawladaha midna. meeshaasina waxa ay noqon kartaa internetka waana inuu noqdaa mid ammaan ah oo aysan cid gaar ah maamulin. fikraddii noocaas ah waxa ka dhashay wax noqday lacagta lixaad ee ugu miisaanka culus muddo 11 sano gudahood ah. haddaba aan soo qaadanno tusaale ku saabsan sida ay u shaqeeyaan cryptocurrencies-ka gaar ahaan Bitcoin. Cismaan, Cali, Geedi, Raage iyo Yuusuf waxay ku dhasheen meel tuulo ah waxayna muddo kadib kala aadeen dunida daafaheeda. Cismaan waxa uu degay America, Calina Imaaraadka ayuu degay, Geedina wuxuu degay Ingiriiska. sidoo kale Raage waxa uu degay Soomaaliya halka Yuusufna uusan meel cayiman deganayn shaqada uu qabto darteed. asxaabtaas shanta ahi waxa ay go'aansadeen in sanadkiiba ay mar kulmaan si ay waayo uga sheekaystaan. haddaba Raage oo noo matali doona booska Satoshi Nakamoto ayaa waxa uu sameeyay system diiwaan ah ammaan ah kaasoo leh furayaal kala duwan oo midba mid ka sii dambeeya isku waqtina lagu update gareynayo mar walba qalabkooda sida kombiyuutaradooda iyo moobiladooda dhammaantood si loogala socdo kharashaadka ay ugu talagaleen kulankooda. haddaba si loo dabaro kharashaadka ku baxaya systemkaasi sida korontada iyo wixii la midka ah, Geedi waxa uu keenay qorshe ah in isla systemka laftiisa laga bixiyo. shantii saaxiib lacagta ay ugu talagaleen kulankooda sanadlaha ah waxay ku ururiyaan hal meel. Geedi oo ka mid ah shanta asxaabta ah ayaa waxay u xilsaareen inuu noqdo agaasimaha kulanka ama qofka soo qaban qaabiya. Cismaan, Cali, Yuusuf iyo Raage waxay lacagta u diraan Geedi iyagoo isticmaalaya systemkii isku xirnaa ama diiwaanka ahaa ee uu sameeyay ninka la yiraahdo Raage. laakiin hal dhib ayaa jira, ma jirto meel adduunka ka mid ah oo lacagtooda fiyaadka ah inta ay sarifaan ay u bedeli karaan lacagta cusub ee uu systemkaasi ku shaqeeyo. kadibna waxay ballan qaadeen in qof kasta marka uu yimaado meesha lagu ballamay ee uu kulanku ka dhacayo lacagta la siin doono ama loo dhiibi doono agaasimaha kulanka oo ahaa Geedi. haddaba systemkii waxa uu duubayaa ballanqaadyadaas lacageed ee ay shanta asxaabta ah sameeyeen waxaana loo nashqadeeyay in ballanqaadyadaas lacageed uu u soo celiyo qaab Bitcoin ah. Transaction-kaasna waxaa lagu maamulayaa saxiix digital ah waxa uuna process-ku u baahan yahay furayaasha qof kasta oo ka mid ah kooxda uu khaaska u leeyahay si uu systemku u hubiyo transaction-kaas iyadoo la isticmaalayo saxiixa digitalka ah. si la mid ah si uu ku soo gaaro transaction-ka waxa uu u baahan yahay saxiix digital ah oo la mid ah kii hore. taasina waxa loo sameynayaa si loo hubiyo in ciwaankii guud ee Geedi uu hayay ballamihii lacageed lagu diray. nidaamkaasi waxa uu noqday mid ay dad badan isticmaalaan dunida waana la bartay sida uu shaqeeyo. taasna waxay keentay in la sameeyo xarumo isku bedel ama exchange centers kuwaasoo la dhiggareeya lacagaha cryptocurrencies-ka ah iyo kuwa fiat-ka ah, NFT-yada ku shaqeeya blockchain-ta iyo wixii la mid ah. haddaba nidaamkaas Satoshi Nakamoto oo soo saaray oo ah shabakadda blockchain waa nidaam qofka qof ah ama peer-to-peer network aysan jirin dawlad ama xarun maaliyadeed uu si khaas ah u hoos tago. waxa ugu muhiimsan ay tahay inaan ka fahmno xalqadan waa in shabakadda blockchain ay tahay kombiyuutarro isku xiran oo daafaha dunida kala yaala loona yaqaano miners kuwaasoo xafida koobiga transaction walba oo ka dhex dhaca ledger xogeedkaas guud. unitka ama cabirka lacageed ee lagu jaangooyo wax walba oo shabakadda blockchain dhex yaala waa lacagta Bitcoin. qaybtan intaasaan ku dhaafaynaa waa inoo isniinta soo socota iyo qaybta saddexaad. haddii aadan qaybtii koowaad daawanin linkiga qaybta hoose ka fiiri ama halkan. mahadsanid.